kulankan ballaaran oo uu shir gudoominayay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Salebaan Yuusuf Cali Koore kuna weelinayeen maariyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Axmed Daarood iyo waliba gudida gacanta ku haysa mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa mashruucaasi oo ah mid hadda ku dhow gabagabo ayaa waxa uu kulankani kamid yahay kulanna joogto ah oo iskugu yimaadaan gudida gacanta ku haysa mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay madax ka socotay dawladda midowga Yurub hay'adaha kala duwan ee iyagu wada shaqaynta la leh wasaaradda iyo waliba hay'adaha kale ee iyagu mashruucan gacanta ku haya ugu horeyna wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa kulankaasi ka hadlay waxaan halkan isugu nimid maanta guddiga steering committee-ga mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa waxaanu filaynaa insha Allah inuu mashruucan noqdo mashruuc ay bulshadu si dhaqso ah u taabtaan faa'iidadiisa oo aanu isleenahay wax weyn buu ku soo kordhinayaa dalka sida ugu dhaqsaha badan waxaanuna runtii halkan u fadhinaa dhammaan dadkii ama hay'adihii stakeholderska ahaa iyo dadkii beneficiarieska ahaa ee loo shaqaynayay intaba halkan aanu ku joognaa dadkii ay khuseysay mashaariicda kuwii qabanayay iyo kuwii loo qabanayay labadaba dhammaan dadka Soomaaliland waxaan leeyahay mashruucani sida ugu dhaqsaha badan ayaynu rajadiisa u arki doonaa sidoo kale waxa dhinacooga halkaasi hadal ka soo jeediyay Master Dhumbaay oo ah madaxa hay'adda UN Habitat u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waliba madaxa midowga Yurub u qaabilsan qaybta biyaha iyo waliba wadooyinka Maxamed Xaaje waxaana ay si weyn u amaaneen kuna bogaadiyeen inuu mashruucan uu yahay mid ku dhow gabagabo how we're doing, what challenges are there, and it's commendable to notice from the presentation, the documents that I've looked at so far and the reports that there is a commendable progress. And we are trying to do everything possible to take corrective and remedial action, and evidence to that is ALMIS on the ground. gabadina maariyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa mudane Maxamed Cali Axmed Daarood ayaa kulankaasi ka hadlay mashruuca maanta saddexdiisa qaybood waaweyn qaybta dhigista pipe-ka iyo qaybta dhisidda xarumihii cusbaa iyo soo saarka diyaarinta dhismayaashii sida barkadii iyo guryihii qalabka lagu dhex rakibayay iyo qaybtii electromechanical-ka ayada qolada Faransiisku sameeyay saddexda qayboodba uu kala duwan yahay progress-keedu amba waxa laga qabtay pipe-ka iyo waxa oo ilaa 400 iyo xogaa mitir u dhiman 500 mitir oo wax yar la ay u dhiman tahay iyo qaybta dhismaha diyaarinta dhismayaasha ee wada shirkadda ALMIS oo iyaduna runtii meel fiican maraysa qaybta uu ku jiro dib u dhaca ilaa hadda waa qaybtii diyaarinta electromechanical-ka mashruucan mas'uuliyadiisa dawladda Soomaaliland iyo qaran bixiyaha EU-da iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland cidda mas'uuliyadda fulinta u haysa waa hay'adda UN Habitat marka waxaanu ka rajaynaynaa iyagoo runtii iyaguna dadaal badan muujiyay in hawlaha muhiimka ah ee socday sanadkan aanay dhaafin. It's something that the people of Hargeysa do not have now. The current water supply of Hargeysa provides only water supply around 30 to 40%, or roughly below 50% of the current population of Hargeysa, of course. So the expectations on this project has been high, very high at the moment, of course. And what we know is that UN Habitat has the responsibility of implementing this project on behalf of our donors, on behalf of the government of Somaliland. Abdul Rashid, Abdul Wahab Hussein, Universal TV, Hargeysa.